السلام عليكم أصحاب تقارير جاي كحرن channel كنا برهان بريقة كسر دو هدي أي تمرك كوريس channel كسبسكرايب نوصل فيديو جنا نلايك جري أصحاب تقارير عاو حايدي وذا شيكو ذا وحي كسر سنتاي سدح ويل وذا دلتاي نين أيا وحو دلي سدح ويل مركو سدح دي ويل ودلي أيوحو كشكي ويلشي سميت كمد إني إسلام تأسجا ودلين وأي مالك لك كان ستاي كدي وحو قان صدي سدح دي سويل inuu u wada bixiyo Cabdullaahi saddexdiisii wiil wuxuu u wada bixiyay magac Cabdullaahi muddo dheer markay ka soo wareegatay kadib ayaa ninkii waxa ku soo xadiray geeridii wuxuu u yeeray saddexdiisii wiil wuxuu yiri kaalaya caaw waa idin dardaarmayaa wuxuu yiri Cabdullaahi wuu dhaxlayaa Cabdullaahi kalena wuu dhaxlayaa Cabdullaahi kalena ima dhaxlayo ninkii nafta ayaa ka dhacday saddexdii wiil ayaa isqabsaday markay saddexdii wiil isqabsadeen arrintii markay meel u jahayn waayeen ayay waxay go'aansadeen inay boqorka magaalada u tagaan sida uu kala bixiyo safar dheer ayay galeen ayagoo socda ayaa nin ka mid ah saddexdoodii ayaa wuxuu arkay rati raadkiis markaas buu wuxuu yiri wariyaada ratigu waa luulaaya waa socdeen wax yar markaas buu haddana midkii kale soo booday wuxuu yiri wariyaada ratigu waa ilaaya ambaar yar haddana socdeen markaas kii kale wuxuu yiri wariyaada ratigu waa usayn laaya shay u socdeen ninkii ratiga ka maqnaa ayaa ka hor yimid markaas wuxuu weydiiyay inay arkeen rati markaas bay waxay weydiiyay ratigaagu ma ilaa markaas yiri haa ratigaagu ma sayn go'na markaas yiri haa ratigaagu ma lug laa markaas yiri haa markaas yiri walaalo ratigaaga ma naarag inta markay yiraahdeen ayaa ninkii qabsaday wuxuuna ku yiri ratigaygu waad aragteen sidaad ku tilmaamteen hadii naarag walaalo ratigaaga ma naarag boqorka magaalada ayaa iskugu tagaynaa sidoo inoo kala bixiyo afartoodii oo wada socda ayaa waxay u wada tageen boqorkii kadibna waxaa dacwadiisii furtay ninkii ratiga uu ka maqnaa wuxuuna u sheegay boqorkii inay nimankan ratigiisii ay ka qaranayaan oo ay arkeen boqorkii ayaa soo booday markaas wuxuu weydiiyay war ninka ratigiisii ma aragteen maana arag ninkii ayaa wuxuu yiri ninka ratigayga waa arkeen oo waxay sheegeen calaamadihii uu lahaa markaas buu ayaa boqorkii weydiiyay nimankii war sideed ku garatay calaamadihiis markaas ratigu ninkii ugu horeeyay ayaa soo booday markaas ratiga uu lug la'aa waxaan ku gartay inuu lug la'aa saanta markuu dhulka dhigayo ratiga si fiican si saaniya lugta uu la'yahay si saaniya muusan u dhigayn kii kale ayaa soo booday ratigu ilaa ayuu la'aa sidee ku garatay inuu ratigu ilaa waxaa ku gartay geedka uu daaqayo geesi buu ka daaqay geesta kalena iyadoo caleen lagu ka tagay midkii saddexaad ayaa la weydiiyay oo la yiri war sidee ku garatay ratigu inuu sayn go'na markaas yiri waxaan ku gartay geelu markuu saaloonayo saalada hadduu sayn leeyahay saas buu kala fardhiyaayo way kala firartaa laakiin hadduu sayn lahayn hal meel ayuu ku saaloodaa ninkii boqorka ayaa go'aamiyay wuxuuna yiri warada iskaga tag meesha nimankan may arag intaa wixii ka dambeeyay boqorkii ayaa weydiiyay saddexdooda waxay ugu socdeen waxayna u sheegteen dacwadoodii inuu aabahood u dardaarmay saddex Cabdullaahi inay laba dhaxlayso midna uu sadexlayn kadibna boqorkii ayaa u yeeray wuxuuna geeyay meel martida lagu sooro wuxuuna u dalbay cunto boqorkii ayaa wuxuu go'aansaday inuu wiil yar oo jaajuusa soo ag fariisiyo sidoo uu ogaado nimanka waxa ay ku sheekaysanayaan cuntadii markii la keenay ayaa mid kamid ah soo booday markaas yiri war hilibka ha cunina waa hilib ay kii kala soo booday markaas yiri war canjeerada laxooxda waxa duftay gabar uur leh kii saddexaad ayaa soo booday markaas wuxuu yiri boqorku waa xaraami inta markay dhacday wiilkii yara ayaa orday wuxuu u tagay boqorkii markii u tagay ayuu wuxuu yiri boqorow saddexdii nin saan bay kala yiraahdeen mid wuxuu yiri hilibka ha cunina waa hilib ay midna wuxuu yiri laxooxda waxa duftay gabar uur leh ama canjeerada saa u taqaaniin kii kale ayaa soo booday markaas wuxuu yiri boqorku waa xaraami boqorkii ayaa ergadiray intuusan nimankii u tagin wuxuu u diray gabadhii yar aan lagu ogeyn wax uur ah wuxuuna u diray guddi soo baara gabadhii yarteed waa la soo baaray muddo dheer markii la baaray kadib ayaa waxaa la ogaaday gabadhii inay uur leedahay boqorkii ayaa yaabay wuxuuna u noqday nimankii wuxuu yiri aawe ninkii yiri hilibku waa hilib ay markaas buu yiri waa aniga sideed ku garatay hilibku inuu hilib ay yahay markaas yiri waxaan ku gartay hilibku inuu hilib ay yahay hilibka caadiga xoolaha baruurta ayaa ka sareysa laakiin hilibka ayga jiirka ayaa sareysa oo baruurta dhexda ayay uga jirtaa kii labaad ayaa la weydiiyay war sidaad ku garatay canjeerada inay gabar uur la duftay
markaas buu yiri waxaan ku gartay gabadha uur kale markay canjeerada dubayso saas u dubayso caloosheeda waxaa celinaya gacanta canjeeladuna waxay u wada buusan tahay hal dhinac ayay u wada buusan tahay saas ayaan ku gartay inay gabadha uur lahayd. inta saddexaad ayaa lagu su'aal weydiiyay sidee baad ku ogaatay inuu boqorku xaraam yahay markaas buu naxay markuu naxaa la yiraahdo nixin cidna waxba kuma yeelayso waxaa laga rabaa saa ku ogaatay inuu boqorku xaraam yahay. waxaan ku ogaaday boqorku inuu xaraam yahay wuxuuna soo ag fariisiyay cunug yar oo jaajuus ah. qofku markuu daacad yahay oo laqdaman uusan aqoonin dadka ma jaajuuso saasaan ku ogaaday inuu boqorku xaraam yahay. boqorkii ayaa saddexdoodii haddaba kala go-aamiyey markuu kala go-aamiyey ayuu wuxuu ku yiri adiga weeye midka xaaraanta ah oo aan dhexlayn aabihiis waayo xaaraantu ayadaa isgarata. asxaabta qaaliga ah intaasuu ku egaya caawa muuqaalkayga. asxaabta sharafta leh aadaa umahadsantihiin dhiirigelintiina iyo sidaa muuqaaladeena aa u daawateen iyo sidaa videoyaasheena aa uga hesheen oo ula gareyseen channelka noogu subscribe gareyseen. asxaabta cusubna waxaan leenahay soo dhawaada channelka subscribe noo saara videoga noo like gareeya sidaa u helno asxaab sida idinka oo kaleeto u wanaagsan.